kulan loogaga hadlayay doorka haweenka ay ku leeyihiin hoggaanka bulshada iyo siyaasadda ayaa waxaa lagu qabtay jaamacadda St Benedict ee ku taala duleedka magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota. kulankan ayaa waxaa lagaga hadlayay duruufaha kala duwan ee soo food saara haweenka meel kastoo ay joogaan. kulankan ayaa waxaa ka qayb qaatay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kolleejka St Cloud Technical College. Hudo Ibrahim oo iyadu ah macalimad wax ka barta St Cloud Technical College lana talisa ardayda ayaa waxa ay soo bandhigtay daraasad ay ku samaysay haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka Liberia qaybta ay ka qayb qaateen dib u heshiisiinta iyo sida haweenka Liberia ay ugu guuleysteen siyaasadda. Hudo ayaa waxa ay soo bandhigtay daraasadeedan waxa ayna ka warantay sida dumarka Soomaaliyeed ay uga qayb qaateen dib u heshiisiintii dadka iyo dalka Soomaaliya balse ayan awood badan ayan ku lahayn siyaasadda taas oo keenaysa sida raggu ay wax ku helaan awoodda. Hudo ayaan waxaan wax ka weydiiyay shirka kadib bal in ay iiga waranto ama noo soo koobto shirkan waxa uu ku saabsanaa iyo doorka dumarka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen. Magaciigu waxa la yiraahdaa Hudo Ibrahim waxaan ahay macalimad ka dhigta social justice iyo diversity classes college-ka loo yaqaano St Cloud Technical and Community College. waxaan kala nahay advisor for to the Somali students or foreign born students waxa loo yaqaano dadka aan ku dhalanin wadanka. shirkan wuxuu ahaa oo caawa halkan iskugu nimaanay shir women summit leadership oo looga hadlayo kaalinta ay ka leeyihiin dumarku ay ama kaalinta ay ka galaan oo ay ka qaataan leadershipka. marka aniga title-kaygu wuxuu ahaa women and peace building. Where are the women? dumarka peace building-ka markii la yiraahdo daba heshiisiinta doorkay ka ciyaaraan misaba ama xagay dumarka jiraan. Where are the women? marka sidaad og tahayba dhaqankeena Soomaalida dumarku waa laf dhabarta society. dumarku waa laf dhabarta ummadda Soomaaliyeed. waa la isbartay wixii ka dambeeyay 20 sano ama 24 sano oo ummadda Soomaaliyeed ay soo barakaceen dadka garabka siiyay garab istaagay noocay doonib ha ahaato waxay ahaayeen dumarka Soomaaliyeed. historically hadii la eegana gabdhaha Soomaaliyeed dib u heshiisiinta ama ha ahaato midii ka dhacday North-ka wadankeena waqooyiga ama midda South-ka ka dhacday ha ahaato kaalin weyn bay ka qaateen. hase yeeshee gabdhaha codkoodu mar walba lama maqlo sababtoo ah ma haysano dad wali noo soo kacay. inkastoo ay jiraan gabdho badan oo Soomaaliyeed iyo hooyooyin badan iyo marwooyin badan oo Soomaaliyeed oo mar walba ugu jira dhaqdhaqaaq xoogan inay ka qaataan kaalin si ay ummadooda iyo dadkooda u badbaadiyaan. hase yeeshee waxaad moodaa in lagu gacan bidixeeyay markay noqoto leadership-ka sida siyaasadda oo kale dumarku kaalin weyn kama aysan qaadanin. marka halkan caawa waxaan u imaaday oo ka hadlayay in dumarka Soomaaliyeed codkoodu uu ay kaalina ka qaateen codna leeyihiin. hase yeeshee aan u baahanahay inaan xoojino codkeena si aan u helno qaybteena leadership-ka markay noqoto. waxaan kula talinayaa horta hore siday diinta u dulman tahay ee dumarka u dulman yihiin markay noqoto dhinaca siyaasadda. siyaasaduna ma aha mid oo ay ku helayaan dumarka Soomaaliyeed si fudud ama si dhayal yar. sidaad u ogtahayba waxa waaye dadka Soomaaliyeed hadda waxay ku qaybsadaan xukunka wax la yiraahdo 4.5 taasoo cunaqabatayn ku keenay dumarka ama gacan bidixayn ku sameeyay dumarka iyo dadka kale oo ay ugu yeereen dadka Soomaalida anigu uguma yeeray minority laakiin dadka Soomaalida loogu yeeray minority. marka sidee bay dumarku ku heli karaan xuquuqdooda waxa waaye dumarku inay midoobaan. gabdhaha walaalaheena oo Liberianka ayaa sameeyay waxay isku keeneen dawladii iyo mucaaradkii laakiin waxaad moodaa gabdhaha Soomaaliyeed in qabiil wax u diiday oo xukunkoodii u diiday ama doorkay ka qaadan lahaayeen siyaasadda qabiil u diiday bay qaarkood ama intooda badan waxaan oranayaa ay wali dabada kula jiraan. marka waa inay gabdhuhu kacaan ayagoo eegaya wadanka dib u dhiskiisa iyo ummadda isu keeninkiisa. qabiil waa lagu soo daalay qabiil meel lama gaarsiinayo. marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa in ay isku duubnaadaan ayagoo xor ka ah qabiil. Ahmed Laari, Kalson TV, magaalada St Cloud.